kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Khamiis soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay 15 bisha Afraad ee Abriil sanadka 2020 qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxa kamid ah rikoor caalami ah haweeney 107 sano jir ah oo ka adkaatay cudurka coronavirus sidoo kale waxaan idin haynaa daawadayaal dalka Shiinaha oo eeyda iyo bisadaha ka saaray liiska xayawaanka la ogol yahay in hilibkooda laga ganacsado sidoo kale daawadayaal waxaan idin haynaa sida xal loogu heli karo isku dhaca lamaaniyaasha oo sababay coronavirus intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambalelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan faalo inooga reeb waata daawadayaal markaana barnaamijkeena aynu gudugaleynaa qodobka ugu hore waxa uu noqonayaa rikoor caalami ah haweeney 107 sano jir ah ayaa ka adkaatay cudurka coronavirus haweeney waayeel ah oo 107 sano jir ah ayaa waxay ka adkaatay COVID-19 iyadoo sida ku noqotay inta la og yahay qofkii ugu da'da weynaa ee ka bogsada cudurkan galaaftay 100,000 oo qof ka badan ayadan oo u dhalatay dalka Holland ayaa waxay jabisay orahdii shacsaneed oo oranaysay in dadka da'da ah ay yihiin kuwa ugu daran ee cudurkani dhibaateeyo marka uu ku dhaco sida ay sheegtay jariidada Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxda Cornelia Ras waxa calaamadaha cudurka lagu arkay Maaj 17deedii xilligaas oo ku beegneed maalin kadib munaasabada ciida dhalashadeeda ee sanadkeeda 107 cudurkan ay ka soo qaaday meel kaniisad ah oo ay ku ducaysanayeen goob lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah oo ku taala jasiiradda Khoria ee koonfurta galbeed ee Holland xilli dambe ayaa la xaqiijiyay in 40 qof oo kaniisada xaadiray ay qaadeen fayraska corona 12 qof oo kamid ahna way u geeriyoodeen maalmo yar ka hor ayaa dhaqaatiirtu waxay Cornelia soo gaarsiiyeen war farxad leh waxa u suurta gashay inay cudurka ka adkaato oo ay meel saarto gabar yar ay eeda u tahay oo saxaafad la hadashay ayaa tiri ma aanan filayn inay sii noolaan karto ayayadani maaha tii ugu horeysay ee cudurka ka adkaata waxaa horey loo diiwaangeliyay tiro dad ilaah cimri siiyay oo 100 kor u dhaafay waxaa kamid ah oday reer Mareykan ah oo la yiraahdo Bill Labshes oo 104 jir ah kaas oo ka badbaaday dagaalkii labaad ee adduunka iyo hargabkii Spain ee galaaftay 50 milyan ee qof ee dilaacay sanadkii 1918 sidaas oo kale waxa cudurka ka bogsaday Taashan Gawangafin oo 103 sano jir ah waa ayeeyo Shiinees ah oo ku nool Wuhan kadib markii 6 cisho la daaweynayay waata daawadayaal wili barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysa markaana qodobkeena kale xiga ayaynu soo qabanaynaa Shiinaha ayaa eeyda iyo bisadaha ka saaray liiska xayawaanka la ogol yahay in hilibkooda laga ganacsado dalka Shiinaha ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka saaray liiska xayawaanka la cuni karo ama hilibkooda laga ganacsado ee la dhaqdo eeyda iyo bisadaha wasaaradda beeraha iyo horumarinta reer miyiga ayaa waxay soo saartay liiska xayawaanaadka la dhaqan karo si hilibkooda loogu ganacsado liiska waxa laga reebay eeyda iyo bisadaha oo arrimo caafimaad xitaa aan loo adeegsan karin waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Press jamciyadda Human Society International ee dalka Mareykanka ka dhisan ee xuquuqda xayawaanka oo bayaan soo saartay ayaa tiri
waa markii ugu horeysay ee xukuumadda Shiinuhu ay garwaaqsato in bisadaha iyo eydu ay yihiin xayawaan dadka rafiiq la ah oo gurijoog ah isla markaana aanay ahayn kuwa loogu talagalay in la cuno. tirkoobyada ay jamciyadani samaysay waxay tilmaamayaan in sanadkiiba 10 milyan oo ay lagu dilo gudaha Shiinaha si loo cuno. sidaas oo kale kumanaan ay ayaa sanad walba lagu dilaa gudaha Shiinaha inta uu socdo dabaaldega sanadlaha ah ee magaalada Yulin ee koonfurta wadanka. waxaa sheegtay wakaalada France Press in xayawaanka duurjooga ah laga ganacsado intii lagu gudi jiray xilligii fayraska SARS uu dunida ka dilaacay ee sanadkii 2002 ilaa 2003 waxaana uu ahaa virus ay corona bahwadaag yihiin oo la sheegay in laga qaaday xayawaan duurjoog ah. waata daawadayaal guntii gabagabadii barnaamijkeena isla soo gaarna markaana qodobka ugu dambeeya ayaynu eegaynaa ee barnaamijkeena. coronavirus ayaa sababay isku dhaca lamaanayaasha gurujoognimada danta biday. haddaba sidee xal loo heli karaa iyadoo ay jirto faafitaanka fayraska corona oo ku sii faafaya daafaha kala duwan ee dunida ayaa siyaabaha looga hortagi karo cudurka waxaa ka mid ah in laga fogaado goobaha ay dadku isugu yimaadaan. arrintaas oo ka dhigan in waqti dheer guriga la joogo, gaar ahaan marka uu qofka si ku meel gaar ah guriga uga dhex shaqaynayo. waxaan shaki ku jirin in guriga oo la joogo muddo dheer uu dhaliyo walwal iyo caajis, arrintaas oo dhalinaysa mashaakil lamaanaha ka dhex dhasha oo aan laga fursanayn. warbixin uu diyaariyay wargeyska Global Times ayaa lagu sheegay in khilaafka lamaanaha uu ku batay magaalada Xi'an ee dalka Shiinaha intii lagu gudi jiray waqtigii bandowga uu saarnaa magaalada ee talaabooyinka lagula tacaalayo caabuqa corona socday. magaalada ayaa waxaa laga diiwaangeliyay tirakoobyo aan horey loo arag oo ku aadan furiinka lamaanaha. haddaba warbixinta ayaa lagu soo hadal qaaday 4 wado oo xiriirka guurka lagu ilaaliyo inta cudurka ka zuulayo, dhibaatada jirtana sida ugu haboon ee looga baxayo. qodobka koowaad waxa uu yahay jadwal degso. waxaad u arki kartaa arrin aan macno lahayn, balse talaabo nidaamsan iyo qorshe aad leedahay oo maalinle ah waqtiga waxay ka dhigtaa mid mashquul badan. maalintuna goor ay ku soo martay ma dareemaysid. jadwalka waxa uu ku tilmaamayaa waqtiga aad lamaanahaaga wada xiriireysaan iyo xilliga aad kala mashquulsan tihiin iyo in qof walba uu hawshiisa u foofo. qodobka labaad waxa uu yahay erayadaada miisaan. marxaladan dareenka taban ayaa ku badan, sidaa darteed ruux kasta waa xasaasi oo dulqaadka ayaa ku yar oo waxba ma xamili karo. sidaa darteed erayada aad leedahay ilaali. ha noqon qof af adag. xusuuso mar walba inaad awoodo waxa kaa dhex guuxayo inaad si wanaagsan u sheegi karto lamaanahaaga. dhibaataha u horseedin, dhibaatana dhexdiinana ha ka dhex dhalin. qodobka saddexaad waxa uu yahay isbedel ku feker. waxaad u baahan tahay inaad ku fekerto fikir cusub oo hal abuur leh si inaad caajistaan aanay u dhicin. sidaa darteed waxaad wada diyaarin kartaan raashin cusub oo aydan horay u tijaabin ama macmacaan idinku cusub oo aad si wada jir ah u samaysaan. qodobka afraad ee ugu dambeeya waxa uu yahay codsiga ha ku badin lamaanahaaga. codsiga ha ku badin, sida inuu guriga dibadiisa marar badan aado oo wax uu soo iibiyo. xiliyadan oo kale waxaa haboon in laga taxadaro in dad kale lala falgalo, iskana ilaaliyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan. sidaas darteed isku day inaad noqoto qof nidaamsan. waa in liiska waxaad u baahan tahay aad mar qura u gudbiso iyo inaad ku koobnaato inaad soo iibsato waxyaabaha asaasiga ah ee lagama maarmaanka ah. waa tahay daawadayaal guntii gabagabadii barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.